wuxuu watay qorsho asiga u gaara annaguna waxaan niri annagoon tashan qorsho ku xiran ma fulin karne aan tashanno ma tayda hal fuliyo aan tashanno iyo aniga tayda hal fuliyo aan ku soo kala tagno waxaan isku qabo wayna waxa kamid aha shabeellada sare iyo Hiiraan state inuu ansixiyo ka bacdina wixii talaa aan u wada gudubno asoo dalka madaxweyne ka asigana wuxuu lagu yiri maba u imaanba waxaad sheegaysiin uma imaan intaan isku qabo wayna intaas waay war kale aanu galin ma dalka aan xureyno yiri annagu inaan dalka xureynane awalba diyaaran u hayno waa ku dhimanay haddana xuduudada noo xiran intaan ku wada hadalnay intaas waay dalkoon la xureyn hal qof oo aan qaabilaana ma jiro waxaan idinku imid in dalka xureysaan oo yiri dalkana annaga kaliya dad uma ahin Soomaaliya ka dhaxeeya Soomaaliyuna deegaan ay kala leedahay diris waaye dadka xuduudaha aan deganahay aan diriska nahayna diris wanaagan leenahay annaga kaligaan in dal xureyna baaldoosar ma ahin xaq ma ahan waxaan u sheegaynaa marka ummadda Soomaaliyeed arrinkaas inuu u liqmi waayay reer Hiiraan iyo Hiiraan state iyo madaxweynaha dalka Hiiraan state annaga waxaan joognaa degmada Maxaasweyn waxaan ku nimid dalab oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo na dalbay waxaan nala socdo madaxweynaha Hiiraan state wuxuu noogu yeeray iyo waxaan u nimid iyo warkaynina waa isqaba waayay wax isugu kayn dhimanuna ma jiraan arrinkaas waxaan meesha lama filaanaha ka dhacay haddana weli asiga waa joogaa saddex fadhiyaan ku kala tagnay fadhigii ugu dambeeyaan ka soo baxnay waa isu kayn qabo waysay dadku haddii oo siyaasiyiin iyo dhaqan yahay waxa ka dhaxeeya talada dalkana nin kaliya kama go'do nin on tala u xiran tahay aan noo yimid dalkana madaxweyne ka waxaan annagu qabnayne waa qaabili waayey waxaan kula hadalnay nagu waa iska noqon doonaa haddaan Hiiraan state nahay nabadoon cabdi gardheere waxaad sheegtay in saddex fadhi aad la yeelateen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud fadhiyadaas inay ku soo dhamaadeen natiijo la'aan bal waxaad inoo sheegtaa waxa sababay inaad isfahmi weysaan idinkii madaxweynaha hal iyo labo waxa sababay madaxweynuhuna wuxuu watay qorsho asiga u gaara annaguna waxaan niri annagoon tashan qorsho ku xiran ma fulin karne aan tashanno ma tayda hal fuliyo aan tashanno iyo aniga tayda hal fuliyo aan ku soo kala tagno waaka qodobada hor dhigteen marka madaxweynaha idinka diiday maxay inaan tashanno qodobka labaad annaga Hiiraan state shabeellada sare iyo Hiiraan meeshaan waxa isugu yimid reer Hiiraan beelay ka kooban yihiin waxa yimid Jejeele waxa yimid Gaaljecel waxa yimid Makanne waxa yimid saddex Umarow waxa yimid reer Shabeelle waxa yimid reer oo Xasan intuba reer Hiiraan oo isku hadaf ahaayeen hadafkoodii madaxweynuhu hal xabo waa ka soo qaadi waayay iyo warkoodii waxaan isku qabo wayna waxa kamid aha shabeellada sare iyo Hiiraan state inuu ansixiyo ka bacdina wixii talaa aan u wada gudubno asoo dalka madaxweyne ka asigana wuxuu lagu yiri maba u imaanba waxaad sheegaysiin uma imaan intaan isku qabo wayna intaas waay marka madaxweynaha isagana qodobada idin soo hordhigay ee aad ka diideen maxay yihiin marka waxa kamida annaga war kale aanu galin ma dalka aan xureyno yiri annagu inaan dalka xureynane
أول بدياران وهينو واكو دمناي هادنا حدودنا نو خيران انتم هو ده هذلنا انت سواي dalkoon la xurayn hal qof oo aan qaabilaana ma jiro waxaan idinku imideen dalka xuraysaan oo yiri dalkana annaga kaliya dad uma ahin Soomaaliya ka dhaxeeya Soomaaliyuna deegaan ay kala leedahay diris waaye dadka xuduudaha aan deganahay aan diriska nahayna diris wanaagan leenahay annaga kaligaan in dal xurayn baaldoosar ma ahin xaq ma ahan waxaan u sheegaynaa marka ummadda Soomaaliyeed arrinkaas inuu u liqmi waayay reer Hiiraan iyo Hiiraan State iyo madaxweynihii dalka Hiiraan State intaasaan kuu sheegaya dadka lama xadi karo dhaqankii iyo madaxweynihii iyo xildhibaanadii oo isku fikira ayaa tagay meeshaas dad la xadayna xabba soo kordhimaan dadka la sheegaa kama warqabno waa maqalnay laakiin dad oo mas'uuliyad qaadi karo ama ka mas'uul Hiiraan ma ahan Hiiraan madaxweynihii iyo dhaqankii iyo xildhibaanadii joogo cid kale wax laga weydiinayo ma jirto xildhibaanadii federaalka joogo kuwii state-ka joogo odayaashii dhaqanka joogo beelaha Hiiraan ka koobnaayana joogo dad la xaday oo meel lagu aruuriyay waxba ma sheegi doonaan wata in xilligan marka idinka aad ku adkaysataan in maamulka Hiiraan State la magac baxay madaxweynaha uu ansixiyo maxay tahay waxa idinku qasbay waxaan ugu kalifay wax adduunku og yahay wixii dhaga qaba maqleen wixii dhaga qaba arkaan state-ka la yiraa Hirshabeelle ayaa baabi'iyay ummadii waxay u qabteen ma jiraan Hirshabeelle kan karay noqotay ku taal Soomaaliya state-kana baabi'isay Hiiraan iyo Shabeellada dhaxmeel ay roon tahay ma jiraan waxaan ugu qasbay inaan maamul kale magacaawno anagu dawladdiid ma ahine Hirshabeelle way baabi'isay dalka iyo dadka intaasaan ugu qasbtay marka madaxweynaha hadda maadaama aad sheegtay in wali isfahmi la yahay soo cab idinkumaha idinka madaxweynaha marka maadaama aad sheegtay in idinkii madaxweynaha isfahmi la yihiin soo cab idinkumaha madaxweynaha inuu dib u laabto isagoo natiijadii u imaaday degmada Maxaas aysan u hirgelin annaga wax dalka iyo dadka iyo madaxweynaha ceeb ku ma sameyn dadweyne aad u fara badan oo mas'uuliyad ximbaarsananahay qof walba danihiisa inuu ka hadlana sharci waaye madaxweynena ma xumeyn wax dalka iyo dadka wax u dhibaana ma sameyn wax ceeb nagu ahuna maba jiraanba maba galeynaba wax ceeb nagu ah soo dhawow fariinta ugu dambeysay aad u dirayso marka bulshada ku daawanaysa maxay tahay bulshada ay daawanaysa waxaan u dirayaa dalku waa nabad qof walba Soomaaliyeed nabad ha ka shaqeeyo cadawga ha iska celiyo dawlad ha u dhagan nuglaado gacmaha ha la isqabsado Soomaaliyeed ha isu naxdo intaasaan soo jeedinayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.